kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan halkani waa Damal Media kuna soo dhawaada barnaamijkeena warogaal barnaamijkeena waxaynu maanta kaga hadli doonaa kuna falanqeyn doonaa hadal ka soo baxay xukuumadda Somaliland kaasi oo ah in siyaasiyiin magac ku leh Somaliland gudaheega ayaa sheegay inay lacag ka soo qaateen dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay ugu hagardaameeyaan jamhuuriyadda Somaliland ugana hortagaan waxba kama jiraan uga dhigi lahaayeen aqoonsiga Somaliland hadalkan waxaa sheegay la wadaagay bulshada reer Somaliland wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Khadar Xuseen Cabdi oo maanta ku sugnaa madal lagu qabanayay shirweynaha garsoorka ee jamhuuriyadda Somaliland halkaas oo ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wasiirku waxa uu sheegay in siyaasiyiin waaweyn oo magac ku leh Somaliland ay tageen magaalada Nairobi halkaasina ay ku soo qaateen mashruuc ay ku hagardaameynayaan xukuumadda Somaliland iyo walibana aqoonsiga Somaliland ay xukuumadda Somaliland hadda ay haysato kaasoo ay ka heshay dalka Israel waa kan wasiirka oo ka hadlaya siyaasiyiintaasi uu sheegay inay soo qaateen mashruuca lagu hagardaameeyo jamhuuriyadda Somaliland muddaan iska aamusnayn haddaan xukuumadda nahay sababtan u aamusnayn maaha inaan sharixi kari weynay wixii aan galay sababtan u aamusnayn maaha in waxaanu galay uu qalad yahay sababtan u aamusnayn waxa weeye in la kala miir dilaaco maanta waxaan ognahay maanta waxaan ognahay rag waaweyn oo siyaasiyiin oo reer Somaliland oo intay Nairobi tageen oo la soo shireen Soomaaliya yiri kan anaga xagal daacinane maxaa noo haysaan waa hubanti weeye maalinteedana iman doonta taariikhdu waa soconaysa waa la isbaranayaa qof waliba godku ka soo baxaya qarannimadeena iyo dawladnimadeena iyo wada jirkeena waa difaacanayna siyaasadeena gudaha markan doono waa ku kala aragti duwanaanayna kala xisbiyeen oo haanayna kala siyaasad baynu haanayna kursiga waa kala riixanayna waa isku eriyeenayna waa isku xadantaynayna laakiin ta aynu wada leenahay iyo isha ay noo baxday iyo cadaaladda maanta aynu u fadhino dalka koowaad aynu ka helay waa ilaashanana qodobka labaad tootaasi markaa waxa ay dadka ku soo dhex tuurtay diintuba ma ogola in Israa'iil heshiis lala galo diinteeni ma ogola in Israa'iil heshiis lala galo Israa'iil heshiiskii koowaad ee lala galo waxay ahayd 1987 gujir baan ahaa anigu markaa Egypt ayaa la gashay Camp David heshiiskii loo odhan jiray buu ahaa waa heshiiska ay Egypt ku aqoonsatay Israa'iil inta wixii ka dambeeyay intaynu noolayn oo dhan waxaynu maqli jirnay wax la yiraahdo peace process wada hadallada bariga dhexe geedi socodka nabadda bariga dhexe BBC-da Cabdilaahi Xaaji Cawkiyo Ilaahay ha u naxariisto Cawkiye waxa ay ku celcelin jireen barnaamijkii loo oran jiray arbacada soo gali jiray toddobaadka iyo arbacada Afrika geedi socodka nabadda ereygaasi bariga dhexe intii wada hadal la galay Camp David ka soo bilow marar badan oo heshiis la gaadhay baa jiray marar badan oo aan heshiis la gaadhin baa jiray ha soo baxa qofka oranaya hal mar ayay wada hadallada iyo dooda diintu xataa soo gashay hal mar diin lagama doodin marnaba waxa la isku hayay diin ma ahayn mid kale aan wada hadalla waan heshiino Palestine oo dad muslimiin ah oo in badan la tacaadufno saxna aan ku nahay in la tacaadufno waxay Israa'iil isku hayaan diin ma waxay isku hayaan waa dhul iyo dana kale oo siyaasadeed inta goor ay wada hadleen ee aynu heshiino iyo inaan heshiinin content-ka heshiiska la isku haya wixii lagu heshiin lahaa la isku haya laakiin mabdii aan heshiino cid aliyaale cid isku haysa ma jirto marka yaan lagu oran lama heshiin kartid kuwa aynu leenahay waynu u doodaynaa ayaa inay la heshiiyaan ula hadlaaya oo wali waxa kale la isku waafaqsan yahay maxaa lagu heshiin karaa
inagu wixii lagu heshiinayay baynu isku waafaqno in iyaguna ay aqoonsadaan inaguna aynu aqoonsano laba wadan oo is ixtiraamaya aynu noqono diintoodii iyo dhaqankoodana kala leh dana siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amnina ay dhex mari karaan waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo shacbigeena si aan diinta loogu soo dhuubanin diinta waa jecelahay wadamada ka soo horjeeda habeen dhaweedna waan sheegay Turki baa kamida wadanka Turkiga hartu wadamada islaamka oo dhan hadaad eegto wadamada diinta ugu wanaagsan inaga kamida Turki khamrigu waa banaayi sharcigooda ogol qofku inuu dariiqa khamri ku cabo inuu khamriga halku doono ka iibsado inaga wadankeena meenu ogol in airportka lagala soo dego maalin boo aragteen booliiska gubaya khamri wadankeena soo galay waaye qiyamkeena islaamnimada ayaa inoo diiday aynu sidaasi u sameeynana waxa kale oo banaan in ragga guursado dumarkuna dumarka guursadaan ayaa sharciga Turki ogolye markaas inaga diin inoo sheegi kara markaas inaga inoo oran kara islaam maxaan ku dhahdaa walaalaheen muslimiin baynu isla nahay inagu muslim baynu nahay barax tiran oo diintooda jecel laakiin aan loogu soo dhuuman karin madaxweynaheenu waa diblomaasi waxa isku hadhadoodilan isagoo fahamsan ayuu go'aansaday inuu Israa'iil heshiis la galo aqoonsi ka keeno xiriirka diblomaasi maro waanu ku saxsan yahay 100% shacbiga reer Soomaaliland waa kula socdaan marka laga yimaado hadalkan ka soo baxay wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland badanaa siyaasiyiinta muxaafidka waxay siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyeen inay dabar jabinayaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo marba siyaasiga haya kursiga ku fadhiya xilka madaxtinimada Soomaaliland oo ku eedeeyo siyaasiga dibad jooga in isagu mar walba ka shaqeynayo sidii uu hagardaamin lahaa jamhuuriyadda Soomaaliland hadalkan wasiirka ka soo baxay ma noqon doona hadal la mid ah hadaladii hore uga soo bixi jiray siyaasiyiinta muxaafidka mise waxay noqon doontaa in la soo bandhigo siyaasiyiinta ka qayb qaatay hagardaaminta jamhuuriyadda Soomaaliland